dowladda dalka New Zealand ayaa sheegtay in muddo 6 bilood gudahooda ay shacabka kaga soo ururisay in ka badan 56,000 oo qori. Tallaabada ay dowladda dalka New Zealand hubka kaga soo ururinayso shacabka ayaa waxa ay timi kadib markii uu dhacay weerarkii magaalada Christchurch kaasoo lagu dilay 51 qof oo muslimiin ah. waxaana ay dowladdu gabi ahaanba shacabka ka mamnuucday isticmaalka iyo haysashada hubka. xayiraadda hubka ayaa waxaa ansixiyay baarlamaanka dalkaasi bishii Maarso wax yar uun kadib markii uu dhacay weerarkii magaalada Christchurch. waxaana weerarkaasi dacwad looga soo oogay Breton Tarrant oo Australia u dhashay isla markaana aaminsan sarreynta midabka caddaanka. hirgelinta xayiraadda hubka ee dalka New Zealand ayaa soo bilaabantay bishii Abriil. hubka ay dowladdu ka soo ururisay shacabka ayaa waxa ay mulkiilayaasha hubka magdhow ahaan ugu celisay 95%. qiimaha ay asal ahaan hubkaasi isku soo iibsadeen. barnaamijkan hub ururinta ee dalka New Zealand ayaa waxa uu ku eg yahay bishan December. wasiirka booliiska ee dalkaasi ayaa mar uu ka hadlayay arrinkaasi waxa uu yiri inaan shacabka ka soo ururino in ka badan 50,000 oo qori. arrintaasi ayaa waxa ay tahay mid aad muhiim u ah. afhayeen u hadashay kooxda u ololeysa ka hortagga hubka sharci darrada ah oo lagu magacaabo Nicole McKee oo u warantay wargeyska New Zealand Herald ayaa waxa ay sheegtay inay aaminsan tahay in dalka New Zealand in shacabka gacantiisa ay ku jiraan hubka dalka laga mamnuucay oo gaaraya 170,000 oo qori. mar ay ka hadlaysay dadka hubka haysta ayaa waxa ay tiri dadka qaar hubkooda way qarsanayaan, qaar waxay aaminsan yihiin inay isku difaacayaan, qaar si wanaagsan u isticmaalaana way jiraan. ma garanayo sida ay wax u socdaan. 2016 ciidamada booliiska ee New Zealand hubka sharci darrada ah ee gacanta shacabka ku jira waxa ay ku qiyaaseen 1.2 milyan oo qori, taasoo u dhiganta 4 qofba mid ka mid ah inuu haysto qori. in ka badan 50 qof ayaa naftooda ku waayay, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar lagu qaaday masaajid ku yaala waddankaasi. Saciid Axmed Tamreyse, wararka telefishinka caalamiga ah Star.